maalin wanaagsan dhammaan asxaabta ku xiran barta Facebook aynu ku leenahay Universal Somali TV waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia si qaarkiin balawda Socday saaka yaroortii ciidamada militariga federaalka Ethiopia ayaa gudaha u galay magaalada iyaga oo xarumihii maamulka la wareegay waxa ayna tageen xaruntii baarlamaanka iyo madaxtooyada intaba ciidamadan ayaa la sheegay in ay ku socdeen amar dawladda federaalka iyadoo uu jiray walwal ku aadan kulan baarlamaanku maanta ay yeelan lahaayeen kaasi oo ay kaga hadli lahaayeen xaaladda guud ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia kulankan ayay dawladdu ka qabtay cabsi weyn oo ku aadan in ay ku dhawaaqaan baarlamaanka go'aamo waaweyn oo ay kaga go'ayaan guud ahaan dawladda federaalka ee Ethiopia baarlamaanka dawladda deegaanka ayaa xaq u leh in 4 meelood oo 3 kamid ah ay isku raaci karaan go'aan ah inay ka go'aan Ethiopia inteeda kale arintaas waxay sababtay in ay ciidamada militariga gudaha u soo galaan magaalada inta kadib arinta ayaa isbedeshay oo dadkii magaalada ayaa bilaabay in ay kacaan oo dibadbaxyo sameeyaan dhagaxna ay la dhacaan ciidamadii militariga ee Ethiopia ee magaalada Jigjiga tagay saakay waxa sidoo kale hadallo jeediyay xubno kamid ah baarlamaanka oo gudoomiyaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida uu ku jiro madaxweynaha ayaa hadda la kulansan saraakiisha militariga ee federaalka iyadoo xaaladda ay dhinacyadu ka wada hadlayaan waxa dad isu soo baxay ay boob u geysteen xarumo ku yaalay magaalada gaar ahaan bangiyo ay lahaayeen dadka Oromada iyo Amxaarada taasi waxa ay sidoo kale sababtay in iyana dadka Oromada meel kamid ah Ethiopia ay iyana ku dilaan dad Soomaaliya iyagu ka jawaabayay falalkii ka dhacay Jigjiga maanta xaaladda wali way kacsan tahay baarlamaanku waxa ay leeyihiin dawladii federaalka Ethiopia ayaa qabsanaysa dawladda deegaanka oo doonaysa in ay sharcigii iyo nidaamkii ku tuntaan madaxweynuhu wuxuu la kulansan istaan idin sheegaba militariga iyagoo xaaladda ka wada hadlaya iyo sidii guud ahaan loo qaboojin lahaa arinta macada halka ay arintan saldhiga doonto hase yeeshee waxaa soo baxayay maalin u dambeeyay gaar ahaan shalay ilaa daraad hadal uu jeediyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo ahaa in 5% ay dadka Soomaalida ee Ethiopia kamid ah ku yeelan karaan shidaalkan laga soo saarayo deegaanka Soomaalida ee Ethiopia iyadoo ONLF ku dheedana ay arintan aad uga carootay cabsi weyn ayaa jirta guud ahaan oo deegaanka Soomaalida ka jirta gaar ahaan magaalada Jigjiga ciidamada oo tadabaabad ayaa meelaha qaar jooga waxa sidoo kale meelaha qaar laga maqlay rasaas oo ciidamada LU booliska ee maamulka hoostaga iyo kuwa federaalka isdhaafsadeen inkastoo aanay ilaa hadda la soo sheegin wax khasaare ah oo arintan ka dhashay waxa si guud ahaan muuqda dareen xoog leh oo ku aadan xaaladdan iminka taagan waxaan idin soo gudbin doonaa hadduu aan wararkii u dambeeyay ee arrimahaasi iyo hadba wixii soo kordha iyadoo oo xiriir aan la sameynay deegaanka ay sheegaan in madaxweynaha aan wax dhiba hadda haysanin oo uu nabad qabo